habraaca xakamaynta iyo maareynta dhacdooyinka amni darrada ah gaalkacyo Oktoobar 13 2018 hordhaca golaha isku dhafka ah ee nabadda iyo dib u heshiisiinta gobolka Mudug waa golo ka kooban odayaasha nabadoonnada ah iyo isimo kana wakiil ah bulshada gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland golahu wuxuu u xil saaran yahay hirgelinta heshiiska nabadda gaalkacyo ee 16 December 2017 iyo xalinta khilaafka ka hortagga colaadda abuurista jawi nabadeed iyo ka shaqaynta dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee gobolka Mudug haddaba golahu markuu arkay khilaafka iyo dhacdooyinka amni darrada ah ee ku soo noqonayay dadka walaalaha ah wuxuu garowsaday baahida loo qabo in la helo habraac lagu xakameynayo aafadaas laguna xalinayo amni darrada ka dhaxdhacda dadka walaalaha ah ee reer Galmudug iyo reer Puntland golahu wuxuu soo saaray habraac waafaqsan sharciga islaamka kana tarjumaya duruufaha dhex yaala shacabka labada dhinac ee gobolka Mudug waxaana hirgelintiisa lagu gaari karaa nabad waarta iyo walaalnimo dhexmarta dadka gobolka wada dega qodobada habraaca qodobka koowaad hal golaha nabadda iyo dib u heshiisiinta gobolka Mudug waa golo u xil saaran hirgelinta qodobada heshiiska nabadda gaalkacyo Mudug December 16 2017 iyo adkeynta nabadeynta bulshada gobolka Mudug wuxuu dhexdhexaad ka yahay dhacdooyin kasta oo ka dhaxdhacda dadka gobolka waana inay ka fogaadaan wixii keeni kara khilaaf dhexdooda ah hal dhibic labo waxaa jirta qoraal si gaar ah u qeexaya waajibaadka shaqo ee golaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta iyo guddi hoosaadyadiisa ee gobolka Mudug laba dhibic hal inkastoo dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad walaalo ah ayna tahay in qof kasta xor u yahay meesha uu degayo si waafaqsan sharciga islaamka iyo dastuurka dalka haddana kalsooni xumada jirta awgeed waa in xoolo dhaqatada gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug ay kala joogaan deegaanada ay ku kala sugan yihiin inta labada maamul iyo golaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta ka wada hadlayaan qaabka loo maareynayo isdhexgalka iyo wadaagga deegaanka wixii degdeg ah oo duruufi keento sida abaaro biyo la'aan ee sababi kara isdhexgalka waxaa ka talinaya golaha nabadeynta iyo madaxda labada maamul laba dhibic labo ciidamada maamulka u gaarka ah iyo kuwa maleeshiyad beeladyada waa in laga qaadaa dhammaan jidgooyooyinka magaalada gaalkacyo gudaheeda iyo hareeraheeda shuruud la'aan sida ku qoran heshiiska nabadda 16 December 2017 ee dhex maray wakiilada beelaha iyo maamulada gobolka Mudug iyo goobjoogayaal dawladda federaalka Soomaaliya 3.1 cidii samaysa dhaqdhaqaaq fidno abuur ah ama kicin colaad dadweyne waa in golaha nabadeynta iyo madaxda labada maamul si midaysan uga hortagaan waana in loo aqoonsadaa fidno wade waana in maxkamad ay maamulada iyo odayada nabadda ku heshiiyaan sharciga marisa 3.2 cidii loo aqoonsado fidno wade ama lagu helo kicin colaadeed waa in ay ciidamada amniga maamulada iyo kuwa isku dhafka ah ee gobolka joogaay ay si dhaqso ah u soo qabtaan sharcigana u horkeenaan 3.3 cidii difaacda qof ama koox loo aqoonsaday fidno wade waxa ayaga loo aqoonsanayaa fidno wadayaal meel ayaana looga soo wada horjeesanaya 3.4 waa in waajibka saaran golaha nabadeynta iyo hay'adaha amniga iyo labada maamul ee gobolka Mudug inay isla wadaagaan xogta fidno wadayaasha iyo kuwa hurinaya colaadaha lagu curyaaminayo nabadda si tallaabo sharci waafaqsan looga qaado 4.1 qofkii ama kooxdii geysata dil waa dambiile waana in la soo qabto sharcigana la hor keeno laguna qaado wixii sharciga islaamku ka qabo soo qabashada dambiilahana waxa loo marayaa habka soo socda 4.2 qofkii ama kooxdii dil ka geysata dhanka maamul kale waxa soo qabashadooda iska kaashanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed booliska isku dhafka ah iyo odayaasha golaha nabadeynta ee dhanka dambiilayaasha u dhasheen ama gabaadsadeen ciidamadu waxay kaashan karaan cidii kale ee amniga sida danab BSF iyo NISA 4.3 habraacani wuxuu askarta iyo saraakiisha ciidamada amniga siinaya awood buuxda ay ku soo qabtaan dambiilayaasha sidaas darteed haddii dambiilayaal iyo cidii gacan siinaysay ay la dagaalamaan ciidanka waxay ciidanku fasax buuxda u qabaan inay la dagaalamaan 4.4 haddii dambiilaha ay dhibaato dhimasho ama dhaawac ay ka soo gaarto qabashada sabab la xiriirta in dambiiluhu la diriro ciidamada amniga wax xaq ah ma leh dambiiluhu
4.5 wixii khasaare soo gaara dhimasho iyo dhaawac ciidanku howlgalku uu ku jiro waxa si midaysan u xalinaya golaha nabadeynta ayadoo loo kaashanayo dawladda dhexe iyo maamulka galmudug iyo Puntland 5.1 cidii geysatay faldambiyeed sida dhaawac dhac kufsi iyo wixii la mid ah waa in la soo qabto lana mariyo sharciga islaamku sida uu ku xukumo qabashada dambiilaha iyo saameynta ka dhalan karta waxay waafaqsan tahay qodobada 4.1 4.2 4.3 4.4 iyo 4.5 6.1 haddii la dhaco xoolo nool ama hanti kale sida gaadiid lacag iyo wixii la mid ah waa in loo soo celiyaa xaqlihii lahaa qofkii ama kooxdii dhacda geysatana waa in sharciga la hor keena 6.2 haddii xoolo nool ama hanti kale la dhaco waxaa dhibanayaasha laga rabaa inay soo wargeliyaan golaha nabadeynta iyo maamulada ama cidii ay gaari karaan oo wargelinta saameyn karta kadibna waa in la wargeliyaa odayaasha golaha nabadeynta ee dhanka xoolaha dhacay si ay uga howlgalaan soo celintooda 6.3 haddii dambiilayaasha dhacay xoolaha ay diidaan soo celintooda odayaasha golaha nabadeynta ee dhanka xoolaha dhacay waxay adeegsan karaan ciidamada amniga isku dhafka ah sida ciidamada xoogga dalka booliska ama kuwa gaarka ah sida ay xalbidaan ayagoo ku wargelinaya odayaasha dhanka kale 6.4 haddii dhibanayaasha xoolaha laga dhacay ay qaadaan tilaabo falcelin ah waxay la dambi noqonayaan dambiilihii xoolaha dhacay markii hore waxaana ayagana la hor keenayaa sharciga 7 qofkii ama kooxdii duulaan qaada deegaan kale waa dulmi falayaal wixii dhimasho iyo dhaawac ka soo gaarana waa korkooda wax xaq ahna ma leh waxa ay dhib geystaanna sida dhimasho dhaawac iyo dhac hantiyeed waa in laga xaaltamaa sida sharcigu qabana la mariyaa 8 isku celinta dambiilayaasha 8.1 cidii dambi ka soo gashay galmudug gudaheeda kana soo jeeda galmudug ona soo fakata dhanka Puntland waa in Puntland u soo gacan gelisaa galmudug 8.2 cidii dambi ka soo gashay Puntland gudaheeda kana soo jeeda Puntland ona soo fakata dhanka galmudug waa in galmudug u soo gacan gelisaa Puntland 8.3 cidii dambi ka soo gashay galmudug kana soo jeeda Puntland waa inay Puntland soo qabato ayadoo kaashanaysa ciidamada amniga haddii loo baahdo waana in lagu xiro xabsi ay labada dhan maamulada iyo odayaasha raali isaga yihiin isla mar ahaantaasna ay labada dhan isla hubiyaan in dambiiluhu xabsi ku jiro lana mariyo waxa ay shariicada islaamku ka qabto una mutaysta dambiga u galay 8.4 cidii dambi ka gashay Puntland kana soo jeeda galmudug waa in galmudug soo qabataa iyadoo kaashanaysa ciidamada amniga haddii loo baahdo waana in lagu xiraa xabsi labada dhan maamulada iyo odayaashu raali isaga yihiin isla mar ahaantaana ay labada dhan isla hubiyaan in dambiiluhu xabsi ku jiro lana mariyo wixii shariicada islaamku ka mutaystay waa 8.5 haddii qof ama koox dambiile ahi lagu qabto meeshii uu dambiga ka geystay waxa lagu xirayaa saldhig iyo xabsi maamulka uu dambiga ka geystay laguna dhax qabtay waxaana la hor keenayaa sharciga si waafaqsan shariicada islaamka 9 waa in guud ahaan wixii dhaca lagu xalliyaa wada hadal iyo dacwo ayadoo loo marayo tub nabadeed waxaana reeban ka daba tag hubaysan cidii sidaas samaysana waxay ka qayb noqonaysaa dambigii dhacay 10 waxaa reeban dacaayad beelasheeg hanjabaad iyo kicin dadweyne waana dambi laga galay heshiiska nabadda ee December 16 oo ku saabsanaa xasilinta gobolka waxaana dhammaan bulshada reer mudug loogu yeerayaa lagana codsanayaa inay ka fogaadaan wixii dhaawici kara nabadda iyo walaalnimada dhexdooda ah haddii idaacadaha gudaha baraha wararka lagu faafiyo warar colaadeed waa in meel looga soo wada jeestaa laguna dacweeyaa ama lagu ganaaxaa dambigooda qodobka 11aad qof kasta oo Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer mudug waxaa saaran mas'uuliyad sidii loo adkeyn lahaa nabadda iyo walaalnimada dadka gobolka mudug ee Puntland iyo galmudug 12 qodobka u dambeeya fulinta iyo hirgelinta habraacaani waxaa iska kaashanaya kana wada shaqeynaya golaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta isimada duubabka madaxda labada maamul iyo ciidamada xoogga dalka iyo booliska isku dhafka ah wabillahi tawfiiq